kulan wacan wanaagsan la daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee dagaalka ka soconaya dalka Ukraine halka aad naga daawanaysaana waa janalka xogta dhacdooyinka iyadoo magaalooyin badan oo kamid ah dalkaasi Ukraine iyo goboladaba ay ka soconayaan dagaalo xoogan oo u dhaxeeya ciidamada wadankaasi iyo kuwa Russia oo 24 bishii February ee sanadkan ku soo duulay ayaa waxa jirta khasaarooyin kala duwan oo soo kala gaaraya labada dhinac iyo sidoo kale dad rayid ah inta badan magaalada bari ee Severodonetsk oo ah meelaha ugu badan oo dagaalku ka socdo waxa hadda gacanta ku haya Ruushka Sergei Haidai oo ah madaxa maamulka militariga ee gobolka Luhansk ayaa sidaasi sheegay horaantii Arbacadii ciidamada Ukraine waxay sheegeen dagaalo qaraar oo ka dhacay dhowr goobood oo ku yaala bariga magaaladan ka tirsan gobolka Luhansk ee dalka Ukraine ruushku wax walba waa ay baabi'inayaan Haidai ayaa ku yiri war uu ka sii daayay telefishinka waxay taangiyo iyo madaafiic ku ridayaan dhismayaal laga degan yahay magaaladaasi waraysi uu bixiyay waxa uu ku sheegay in horaantii toddobaadkan ciidamada gaarka ah ee Ukraine in ay ku guuleysteen in ay la wareegaan ku dhawaad kala bar magaalada Severodonetsk laakiin wuxuu sheegay in markii ciidamada Ruushku ay arkeen horumarka Ukrainiyeanka ay si fudud u bilaabeen in ay dhulka la simaan duqeymo iyo madaafiic Haidai waxa uu sharaxay in ciidamada Ukraine aysan lahayn wax kale oo aan ahayn in ay xeelad ku meel gaar ah uga baxaan qaybaha dhexe ee magaalada taasoo ay ugu wacan tahay duqeynta xoogan ee Ruushka ka imaanaysa sargaalkan ayaa waxa uu sheegay in kasta oo dib u dhacay Ukraine waxa ay sii xajisatay gacan ku haynta aagga warshadaha ee Severodonetsk oo ah aag muhiim ah oo ku taal duleedka magaaladaasi madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky waxa uu sheegay in bariga magaalada Severodonetsk ay weli tahay xudunta iska hor imaadka Donbass kani waa dagaal aad u daran aadna u adag ayuu yiri madaxweynuhu malaha waa mid kamid ah kuwii ugu adkaa intii uu socday dagaalka waxaan u mahad celinaynaa cid kasta oo jihadan difaacday siyaabo badan ayaa loogu tashanayaa masiirka Donbasskeena Zelensky wuxuu kaloo yiri dadka qabsaday waxa ay ku dhawaaqeen war waalan ee ah in ay isku diyaarinayaan in ay midoobaan qaar kamid ah naadiyada kubadda cagta ee dhammaan dhulalka la haysto si ay u noqdaan hal horyaal oo been abuur ah oo ka socda Donetsk, Luhansk, Kherson, Melitopol, Crimea iyo xitaa qayb kamid ah Georgia wuxuu go'aanku ku tilmaamay jees dadka reer Ukraine soo noqoshada Ukraine oo kaliya ayuu Zelensky carabka ku adkeeyay in ay la micno tahay nolosha caadiga ah ee dhulkan magaalooyinkan mar labaad nabad badbaado u furan adduunka iyo dabcan ciyaaraha cusub ee kooxaha heerka caalami ee Donbass Arena ayuu raaciyay Zelensky hadalkiisa Master Zelensky waxa uu sidoo kale u mahad celiyay madaxweynaha Poland Andrzej Duda iyo madaxweynaha Slovakia Zuzana Kabotova indisaha markaasi wadajirka ah ee lagu bilaabayo safar gaar ah oo uu ku tagayo wadamada Yurub si loo taageero aragtida Yurub ee dalkeena waxa uu sheegay in dhammaan diblomaasiyiinta Ukraine ay si buuxda arintan uga shaqeynayaan madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky waxa kale oo uu xusay in Arbacadii uu la hadlay wakiilada dhaqaalaha ugu badan ee maalgashi ee adduunka uu kula hadlay xaflad gaar ah Arbacadii waxaanu ku booriyay in ay maalgashadaan Ukraine Zelensky wuxuu la hadlay xubnaha bulshada hogaamiyayaasha shirkadaha waaweyn ee Mareykanka wuxuu ku booriyay in ay ka tagaan suuqa Ruushka oo aysan ku taageerin dagaalkan canshuurtooda waxa uu sheegay in ay aad muhiim ugu tahay inuu ogaado in hogaamiyayaashan ay taageerayaan xoojinta cunaqabataynta ka dhanka ah Ruushka in ka badan 1,000 shaqaale oo Ukraine ah oo dhawaan iska dhiibay Mariupol ayaa loo qaadi doonaa Ruushka wakaalada wararka ee Ruushka ee taas la yiraahdo ayaa warisay Arbacadii iyada oo soo xiganaysa ila sharci fulinta ka tirsan in ka badan 1,000 qof oo ka yimid Azovstal ayaa loo qaaday Ruushka hay'adaha fulinta sharciga ayaa si dhow la shaqeynaya iyaga taas ayaa sidaasi ku warantay ilaha ayaa intaasi ku daraya in Ruushku uu sidoo kale qorsheynayo in uu tiro maxaabiis ah oo kale oo Ukraine u dhashay uu u daabulo dhulka Ruushka
dhammaadkii maajo bishii aynu kasoo gudubnay wasaaradda difaaca ruushka ayaa sheegtay in ku dhowaad 1,000 askari oo Ukraine ah ay isdhiibeen kadib toddobaadyo uu dagaal ka socday warshadaha birta ee Azovstal kuna taala Mariupol. waxaa kadib guddiga baarista ruushka oo u shaqeeya sida awoodda baaritaanka ugu weyn ee Kremlin-ka ah ayaa sheegay in ay su'aalo weydiin doonto dagaalyahanada isdhiibay ee Ukraine ee laga soo daadgureeyay Azovstal. maamulka Ukraine weli si cad ugama jawaabin warbixinta ay qortay taas. ciidamada Ukraine ee la dagaalamaya kuwa ruushka ee ku sugan mid kamid ah magaalooyinka muhiimka ah ee bariga dalka Ukraine ayaa ka baxay magaaladaasi inkasta oo gudoomiyaha gobolku uu ku adkaystay inay weli ku dagaalamayaan sentimitir kasta oo magaaladaasi kamid ah. dagaalkii magaalada Severodonetsk ayaa ka marakacay horumarkii xiisaha lahaa ee inji by inji ay sameeyeen ciidamada ruushka markii ay ku soo dhawaadeen gacan ku haynta gobolka Luhansk oo dhan. mid kamid ah labada gobol ee ka kooban ee wadnaha markaasi warshadaha dalkaasi. kadib isku daygii la isku dayay ee lagu doonayay in lagu afgembiyo Kiev maalmihii hore ee dagaalka, ruushku waxa uu diiradda saaray gobolka macdanta dhuxusha iyo warshadaha. Donbass waxaa qayb ahaan gacanta ku haya gooni ugoosadka uu ruushku taageerayo tan iyo 2014 taasoo ka dhigtay khadadka saadka oo gaaban una ogolaaday Moscow in ay tababarto xoogaga gooni ugoosadka ee duulaanka halkaasi ka wada. balse ruushka ayaa sidoo kale wajahaya ciidamada Ukraine ee ugu adag dagaalka kuwaasoo halkaasi kula dagaalamayay gooni ugoosadka muddo 8 sanadood ah. natiijadu waxa ay tahay in labada dhinacba isweydaarsanayaan madaafiic geysatay khasaare xoogan, balse midkoodna uma muuqdo mid si cad u socda. Ukraine waxa ay waday siyaasad difaac dabacsan iyada oo xoogeeda siinaysay in la sameeyo halkii ay ku haysan lahayd inji kasta oo dhulkaasi kamid ah, ayuu yiri Keir Giles, khabiir ruush ah oo London ku sugan. iyada oo ruushku uu sii wado in uu garaaco magaalooyinka iyo tuulooyinka ku yaala bariga Ukraine, Kremlin-ka ayaa isku dayaya in uu sii qoto dheereeyo xajinta dhulka la haysto ee koonfurta dalkaasi Ukraine, dib u soo celinta isku xirka gaadiidka iyo kaabayaasha kale ee muhiimka ah si loo sugo buundada dhulka ee ka timaada ruushka ilaa jasiiradda Crimea. wasiirka difaaca ee ruushka Sergei Shoigu ayaa waxa uu sheegay in salaasadii ay ciidankoodu la shaqeynaya tareenada ruushka ay dayactireen ilaa 750 mayl koonfur bari ee Ukraine ayna dejiyeen shuruudo taraafikada buuxda ee halkaasi ka soo qulqula ruushka iyaga oo sii mara bariga Ukraine gobolka Donbass ilaa dhul la qabsaday ee Kherson iyo Crimea. waxa uu sidoo kale sheegay in biyuhu ay mar kale ku qulqulayeen Crimea iyaga oo sii maraya kanaalka waqooyiga Crimea, isha lagama maarmaanka u ah biyaha macaan ee Ukraine ee jartay 2014 kadib markii Kremlin-ku ay ku dartay jasiiradda. tallaabadaasi oo Ukraine iyo xulafadeeda reer galbeedku ay ku tilmaameen mid sharci darro ah. Master Shoigu waxa uu ku andacooday in isku socodka baabuurta uu hadda furan yahay inta u dhaxaysa qaadaha ruushka iyo Crimea. mid kamid ah sheegashadiisa si madax banaan looma xaqiijin karo madaxa uu ruushku markaasi u magacaabay Crimea, Sergei Aksenov, ayaa Arbacadii sheegay in dariiqa gaadiidka baabuurtu ay ku habboon tahay ujeedooyinka militariga iyo ujeedooyinka bixinta cuntada, laakiin waxay noqon doontaa waqti ka hor waxa isticmaali kara dadka rayidka ah. Ukrainiyiinta ogeysiisyadu waxa ay ahaayeen mudaaharaad dheeraad ah in ruushku uu damacsan yahay in uu kala gooyo Ukraine oo uu dhaco kheyraadkiisa dabiiciga ah. dekadaha badda madow ee Ukraine ayaa go'doomiyay tan iyo markii uu dagaalku bilowday in ka badan 20 milyan oo tan oo haruur ah oo loogu talagalay in laga dhoofiyo ayaa ku xayiran halkaasi, taasoo sii xoojisay dhibaatada cunnada ee adduunka oo dhan.